kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalkaab media qodobada maanta kuwooda ugu door korona waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka Soomaaliland oo xabsiga dhigay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland maamulka Jubbaland oo ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya qalqalgelinta amniga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose dawladda Kenya oo joojisay duulimaadkeedii tooska ah ee magaalada Nairobi taliska Mareykanka oo sheegay inay dileen 13 dagaalamo oo ka tirsan Daesh kadib duqeyn ka dhacday gobolka Bari qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal warka dalkaab media balse aan ku bilaabo maamulka Soomaaliland ciidamada ammaanka Soomaaliland ayaa xabsiga magaalada Hargeysa waxay dhigeen xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo kamid ah golaha wakiilada Soomaaliland ee ka soo jeeda deegaanada gobolka Sool xildhibaanka oo ka hor xarigiisa aan xasaanada laga qaadin ayaa loo xiray sabab la xiriira in maalinta 18 bisha May aysan ahayn maalin qaran balse ay tahay maalinta ay leeyihiin ururka SNM warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in saacadaha soo socda ay macquul tahay in xildhibaan Dhakool loo gudbiyo xarumaha hay'adaha dambi baarista ee Soomaaliland sida ay ku waramayaan ilo xogogaal ah oo ku sugan magaalada Hargeysa siyaasiyiin fara badan oo ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland ayaa waxay si kulul uga hadleen xariga xildhibaanka iyagoo madaxweynaha Soomaaliland ku eedeeyay caburinta dadweynaha xildhibaanka oo ay xireen ciidamada ammaanka Soomaaliland ayaa waxaa la sheegayaa in khilaaf xoogan uu dhaxeeyo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isla markaana ay keentay inay isku dhacaan oo xabsiga loo taxaabo xildhibaanka oo aan xasaanada weli laga qaadin arrintan ayaa waxaa laga yaabaa inay isu bedesho siyaabo kala duwan maadaama xildhibaanku ka soo jeedo gobolka Sool oo inta badan ay kala haystaan maamulada Puntland iyo Somaliland kuwaas oo isku dagaala deegaanka tukarraq ee gobolka Sool dawlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeysay faragelin ay ku hayso arrimaha Jubbaland iyo qalqalgelinta dhinaca amniga kadib markii dagaal xoogan uu ku dhaxmaray ciidamo uu hogaaminayo musharaxa u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulka Jubbaland Cabdi Naasir Sayraar iyo ciidamada maamulka Jubbaland war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa lagu sheegay in wixii ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ay eeday leedahay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay taasi cadeen u tahay qalqalgelinta amniga ay dawladda Soomaaliya ka wado deegaanada Jubbaland waxaa sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya loogu digay qalqalgelinta amniga ee xilligan iyadoona lagu guda jiro soo xulista xildhibaanada iyo u diyaar garowga doorashada madaxtinimada dawlad goboleedka Jubbaland waxayna baaq u direen beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed Cabdinaasir Sayraar oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulka Jubbaland ayaa wuxuu hore u soo noqday afyeenka maamulka Jubbaland iyadoona la sheegayo sababaha xilka lagu qaaday ay tahay khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay asaga iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ciidamo hubaysan oo taageersan Cabdinaasir Sayraar ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ayaa shalay dagaal xoogan wuxuu ku dhaxmaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo iyo ciidamo taabacsan maamulka Jubbaland kaas oo la sheegayo in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose wararka naga soo gaaray waxay sheegayaan in xiisad ay ka taagan tahay halkaasi war qoraal ah oo ka soo baxay dawladda Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in dawladda Kenya ay ka baxday heshiiskii ay kala saxiixdeen dawladda Soomaaliya kaas oo ahaa in diyaaradaha rakaabka sida ee ka baxa magaalada Muqdisho ay si toos ah ugu degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya laanta duulista hawada ee dalka Kenya oo qoraalkan soo saartay ayaa sidoo kale waxay la wadaagtay laamo kala gedisan oo ay xiriir la sameysay waxaana kamid ah goobaha ay la sameysay xiriirka dawladda Soomaaliya dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa waxay ka hadashay arrinta ka noqoshada heshiiskii duulimaadka ee joojisay dawladda Kenya waxayna sheegtay in arrintan baaritaan ay ku sameyn doonto sababta ka dambaysa ayna kadib wada hadal lagu gali doono sida uu sheegay wasiirka wasaaradda duulista hawada dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar dawladda Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxay hore u heshiiyeen in duulimaadka ka baxa magaalada Muqdisho aysan sii marin Wajeer oo ay toos ugu degaan garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta sida duulimaadyada kale ee ka yimaada wadamada kale ee dunida arrintan ayaa u muuqata in ay muujinayso
burburin ku yimid heshiiskii ay galeen dalka Kenya iyo Soomaaliya maadaama ay joojisay duulimaadkii ka baxay magaalada Muqdisho in si toos ah ugu degaan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. war qoraal ka soo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa lagu faahfaahiyay duqeyn dhinaca cirka ah oo Mareykanka uu ka fuliyay deegaano ka tirsan dawlad goboleedka Puntland. qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ay 8 bishan duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen deegaanada Buurule ee Galgala Goolis ee gobolka Bari ka tirsan saldhigii ay ku leeyihiin ururka Daesh. duqeyntaas dhinaca cirka ah waa mid aan ku taageerino dawladda Soomaaliya si ay ula dagaalanto Al-Shabaab isla markaana ay u wiiqdo awoodooda. waxaana duqeyntaasi lagu dilay ilaa 13 ka tirsan dagaalamayaasha kooxda Daesh. agaasimaha dhinaca sirdoonka u qaabilsan qaaradda Africom sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay inay baarayaan in duqeyntaasi ay waxyeelo ka soo gaartay iyo in kale dadka rayidka ah isla markaana qiimeyn ay ku sameyn doonaan khasaaraha guud ee ka dhashay. waxayna sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah kooxda Daesh. Mareykanka ayaa kordhiyay weerarada dhinaca cirka ah oo ay ka fulinayaan gobolada dalka waxaana duqeyn 14 bishii Abriil ee sanadkan ka dhacday gobolka Bari lagu dilay kooxda Daesh Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Cabdixakiin Dhaqob. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen Dalkaab Media. intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.